anigase ima soo gaarin. Aniga sidan u dhiig baxayay ayaan intan wareeray dhinac iskaga dhacay. Nasiib wanaag waxay ahayd xilli qoraxdu sii dhacaysay, dhiigaygu wuu joogsaday. Inkastoo aan istaagi karin oo aan halis ku jiro haddaan istaago, xoogaa mar aan meeshii jiifay ayaan isku dayay in aan ka tago meesha aan ku dhiig baxay, oo waan ogahay inuu meesha bahal imaan doono, waayo dhiigayga ayaa dhulka ku daatay, bahaladuna way soo raacayaan. Canugii markuu daalay oo uu meel iga fog tagay ayuu keligiis cabsaday oo uu dib u soo laabtay, laakiin wuu isoo gaari waayey oo uu iska fariistay. Halkii ayuuna joogay, balse nasiib wanaag waxaa meel fog iga arkay nin xoololey ah oo meelahaasi iska marayay. Wuxuu arkay anigoo istaag maagaya intaan wareeray oo isku qasmaya haddana joogga ka dhacaya oo afka ciidda la galay. Waa uu soo orday wuuna ii yimid. Markuu xaalkayga arkay ayuu intii go'iisii ii hogiyey oo shaatigii la baxay oo gacanta ku qabsaday ayuu qaylo iyo orod iyo ciid isku daray. Buur dheer oo dhanka qorraxdhaca iga jirtay ayuu fuulay, laakiin wax u soo jawaaba ayuu waayey. Kadibna inta xaggii ariga aaday ayuu haddana buurta ku laabtay, kadibna buurta korkeeda ayuu xaabado ka riday. Markiiba 5 nin oo ordaysa oo qoryo sidata ayaa meel fog ka soo baxeen. Ninkii ayay u yimaadeen, kadibna aniga ayuu ii soo tilmaamay. Waxay soo ordaanba way ii yimaadeen, way ila hadleen, laakiin cod liita oo qaybo ka mid ah aan la maqlayn ayaan ugu jawaabay. Go'ii ayay intii farqaha ka xireen sidii alaabtii iigu qaadeen ayay waxay egeeyeen isbitaalkii tuulada ragga ay ka yimaadeen. Kadibna waxaa lagu yiri canugan dhiig ayuu u baahan yahay. Isla markiiba dhaqaatiirtu waxa ay dareemeen in ay dhiigira jirto, dhiig badanna uu iga khasaaray. Isla markaana waxaa la ogaaday nooca dhiigayga iyo inta liitar oo dhiig ah oo aan u baahanahay. Waxaase la waayay qof u diyaarsan inuu dhiig iska qaado oo aniga la igu shubo. Nasiib wanaag odayaashii meesha joogay ayaa lacag isku daray isbitaalkii inay dhiig iga gadaan ayay isku dayeen. Intaa kadib nooca dhiigayga ayaa la baaray. Nasiib wanaag wuxuu noqday nooca ugu badan oo qof kasta leeyahay, balse iima suuragelin in dhiig la igu shubo, sababtoo ah ayadoo dhiig layga qaadi rabo keedkii dhiigga ee isbitaalka ayaan iska soo istaagay oo aan soo fariistay. War dhiig ha igu shubine, cabitaan isiiya, waan oomanahay. Badownimadeydii waxaan moodayay in dhiigga afka layga shubayo. Markaas baan islahaa armaad ma tagtaa, sidee baad se u laqi dhiig quran ah. Anigoo sidii u fadhiya ayaa waxaa isbitaalkii soo galay dad qamaam ah. La soco qaybta 5.